maxaa gaal iyo muslimba cumar loo xusayaa waa maxay miisada ka muuqata xukunkiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar baa kasii cadaalad badnaayeen laakiin saaxaday ka taliyeen baa waxay ka yarayd saaxada cumar ka taliyey cumar dowladdiisu waxay ahayd dowlad wakhti dambe joogtay oo atraaf ilcaalam dunida in ballaadhan ka talisa sanadkii 17 hijriyadu markay maraysay ayaa waxay muslimiintu qabsadeen alkuuri 7 meel ay yidhaahdaan 7 meelood waa meesha imika ahwaaziya waxa la yidhahda ee Iiraan ka tirsan meesha waxaa markaa madax ka ahaan jiray Hurmuzan boqor la odhan jiray oo boqorradii Bershiya ka mid ah dabeetana muslimiintu markay soo qabteen ayaa waxaa la yidhi cumar ha loo diro boqorkii iyo wixii meesha lasoo qabtoo dhan baa la diray niman madaxana waa la soo raaciyey ragga la soo raaciyey saxaaba ka mid ahayd Anas ibnu Malik baa ka mid ahaa saxaabadii soo raacisay taariikhyahanadu sheegaan waxaa ka mid ahaa ninkii mukhadaramka ahaa ee Laxnaf ibnu Qais waayeelka u ahaan jiray waa la soo waday madiina dacalkeeda markii la marayay ayay waxay yidhaahdeen qoladii maxaabiistan waday war bal cumar aan aragna dadka kale siduu u nooliyay aan tusinne ninkan boqorka wixiisii oo dhan ha loo xidho ninkii boqorka ahaa waxaa la siiyey waxa boqortooyadiisa markuu fadhiyey wixii uu xidhan jiray dahab iyo koofiyada iyo wixii uu dhar xariir iyo wixii isku taxi jiro oo dhan ayaa loo dhiibay dabeetana isagoo boqor u muuqda oo wixiisii oo dhan xidhan oo taaj weyn oo mukallal bilyaquut sita ayuu soo galay markay magaalada madiina soo galeen ayay cumar soo raadiyeen gurigii bay yimaadeen cumar baa gurigii laga waayey waa la weydiiyey cumar xaguu jiraa waxaa la yidhi cumar wuxuu ku maqayay masaajidku jiraa masaajidka yimaadeen masaajidka markii ay soo galeen bay waxay arkeen cumar oo masaajidka meel ka mid a duuduubana hurda halkaa masaajidka dhexdiisa saxaabadii way ka xishoodeen inay cumar toosiyaan meel bay iska fadhiisteen markaa aywa madaxay jecel yihiin walow uu boodhkiisa iska hurdo halkaa joogo agtooda waa mubajal waa mukaram way iska halkaasaa la fadhiistay Hurmuzan baa markaa wuxuu yidhi ayna huwa ninkii madaxda aynu raadinayna me waxaa la yidhi huwa daa masaajidka dhinaciisa waa ninka halkaa jiifa markaasuu wuxuu weydiiyey ayna xarasu wa xujaabu xaraskii askartii ilaalinaysay iyo xujaabkii kuwan brotocoolka iyo waxayaan la soo dhaafina hore waxaa sameeya buu yidhi waxaa la yidhi cumar laysa lahu xarasun walaa xaajib cidina ma ilaaliso qolo brotocool hayso ka soo horraysiiya waxba toona ma jiraane meesha waa ninka iska jiifa intuu eegay ayuu wuxuu yidhi bay yidhahdaan weer taariikhdu ay qortoo la yidhaahdo cadalt fa amint fa numta buu yidhi waad cadaalad samaysay dabeetana inaad cadaalad samaysay waxaad ka heshay nabadgelyo dabeetana waad ka seexatay buu yidhi yani inaad cadaalad samaysay baa waxay keensatay inaad nabadgelyadaa hesho adigoo qaarad dhan ka taliya cumar wuxuu ka taliyaa markaa min masar laga bilaabo ilaa iyo Iiraan inta ka dhexla buu ka taliyaa ilaa iyo shaam oo dhan buu ka taliyaa cumarkii intaa ka talinayay meel buu iska jiifaa waxaynu u baahanay marka madaxdu ima inay cadaalad samayso ama se haddii cadaalad laga waayana ama mas-uuliyadda uu xambaari kari waayana inuu dadkiisa ka mid noqdo iska dhaadhaco resignation inuu dhiibo dadkiisa uu ka mid noqdo waxaa la idhaha cumar ibnu cabdilcaziiz alkhaliifa alkhamis ay ku tilmaamaan culamaai taariikh dowla lamawiya madax ka ahaa ayaa cumaashiisa wilaayaadka cidda ka talisa ayuu waraaq u qori jiray waraaq buu mid u qoro wuxuu ku yidhi sida saaxibu shadaraati dahab uu soo warinayo jiska koowaad waraaq buu u qoro wuxuu ku yidhi qad kahura shaakuuk waqalla shaakiruuk faima cadalt waima اctazalt wasalaam waraaq kooban buu usoo diray uu wuxuu leeyahay waxaa tiro batay dadkii kaa cabanayay waxaa yaraaday kuwii ku mahadinayay
أما عدالة سماه أما يسعزل بويلي dabeetana nabadgelyo waraaqdu waa afarta jumlo ama saddexda jumladooda kooban miqyaasku wax ku qiimeeyay wax weeyaan dadku aad bay kaaga cabanayaan buuleeyinta kuma hadinaysaana way yartay wadcigaagii maamul saas u muuqdaa maxaa sababi kara cadaalad xumun buuleeyay marka ama cadaalad samee ama iscasil buuleeyay madaxda caalamka islaami joogta waxay ahayd inay labada qaacida mid un qaataan ima inay cadaalad ku dhaqaan هدو تاج وايو لضعف في نفسي أو لمشكلة أخرى وحي دون طبعا النقطة هدو أركه إن أنا وحن وضي كرنا إنه قاطه إنه عزلات دي سقاطه وردة وعمر بن عبد العزيز وقري واحد هذا وحي كعام بحضي مركي دنبه إنه نقطه كلمة فوق هذا يا مدح دبي وقران ضدك وحمامله waxaa la yidhahdaa magaala ninkii madaxdee joogay xams magaaladan la yidhahdo suuriya ku taalla ayaa ninkii madaxdee joogay wuxuu sheegay magaaladu inay yara dunduntay oo in dib loo islaaxiyo inay u baahan tahay waa isla cumar bin cabdilcasiiski cumar waraaq yaroo kooban buu isna u qoro wuxuu yidhi xasinha bilcadl wanaqi turuqaha min aljawr wassalaam atartuushi siraajulmuluk buu kusoo naqlinaya wuxuu leeyahay magaalada haddaad doonayso inaad hagaajiso cadaalad ku hagaaji derbiyada maaha waxa mudan in la hagaajiyo waa bini aadamka haddii bini aadamka la hagaajiyo isaga derbiyada dhisanaya marka wuxuu leeyahay magaalada haddaad rabto inay hagaagto cadaalad ku hagaaji buu yidhi wadooyinkeedana ka nadiifi dulmiga intaa un adigu samee buu leeyahy inaad wadooyinkeedana dulmiga ka nadiifiso waxaan leenahay madaxdu waxay u baahan yihiin in lagula dhaqmo qawaacidii cumar ummadda uu kula dhaqmayay cumar laba qaacido tilmaamayay almuxaasaba walcazl inuu dadka xisaabiyo oo xumahooda lagu xubo iyo hadday wadi kari waayaan inay iscasilaan qawaaciddiisa waxaa cumar ka mid ahayd uu ku dhaqayay macruufka ku noqday labadii shay aynu tilmaamayna inuu aada u ilaaliyo waxaynu idhi ambiyadu waxay ilaaliyeen inay dadka caqaa'idooda u dhowraan iyo jeebkooda inaanay hunguraynin qul laa asalukum calayhi min ajrin baa nebi weliba ku dhawaaqaya fii suurati shucaraa markaad akhrido waa nebi rasuul ah oo ilaahay soo diray haddana waxaa la yidhi dadka u sheeg si dadku uu itmi'naan u helo u sheeg inaad dadka jeebkooda ku soconin ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ثاني الأمر واحد وشيكته لا أسألكم عليه من أجر أدوني ذا كمان ربنا وشيك عمر روح استعمال شري قاعدة بيدهدان مدح ذولي متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ورقور ما ضدك أدون سطيه يده ينكود دالين يكو حرة قاعدة الله وحي هانشر تبال يدهدا من أين لك هذا madax baad tahay soo maaha xaggaad hantida ka keentay